بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارك وتعالى توفيق هنا وفجيو علم نافع iyo camal saalixana ilaahay tabaaraka wa tacaala inoo kulmiyo. saacadaha aan meesha fadhinana haynaga dhigo kuwa faa'iidaysta, miisaanka xasanaadkana ilaahay inoo saaro. bisha ramadaan oo ay inooga laaban tahay tobaneeyo beri, sideen ku qaabilaa, sidee lagu soo dhoweeyaa, intaysan soo gelin maxaa nala gudboon, markay soo gashase maxaa nala gudboon. waa arrimo muhiim ah oo loo baahan yahay in la sii ogaado. bishu waa bishii ramadaan. ilaahay tabaaraka wa tacaala waqti uu khayr badan geliyey, waa jaanis weyn, waa bishii qur-aanka kariimka ilaahay soo dejiyey, waa bishii ilaahay tabaaraka wa tacaala inagu waajibiyey tiir ka mida tiirarka islaamka, waa bishii ilaahay uu dhex geliyey habeenka ugu fadli badan habeenada sanadka oo laylatulqadriya, waa bishii dembi dhaafka iyo towbadda, waa bil ilaahay tabaaraka wa tacaala uu geliyey dhexdeeda khasaa'is fara badan, ahmiyad khaasana leh. sidaas daraaddeed ruuxii jaaniskaas ka faa'iidaysan waaya oo dayaca, sida nebigu sheegay sala allahu calayhi waaalih wasalam, waa ruux maxruum ah. maxruumku waa ruux khayr laga qadiyey, waa ruux khasaaray wey. ruux ramadaan u soo galay oo aan ka faa'iidaysanin, oo ramadaan dhammaaday isagoon loo dembi dhaafin, allaha fogeeyo. jibriil baa saa ku habaaray, nebigeennuna sala allahu calayhi waaalih wasalam aamiin ayuu yidhi. saas daraaddeed ruuxa khayr laga qadiyey waa ruuxa ramadaan oo soo galay ka faa'iidaysan waaya. ilaahay tabaaraka wa tacaala haynaga dhigo kuwa ka faa'iidaysta. intayna bishu inoo soo gelin, waxaa loo baahan yahay inaan qaadanno tillaabooyin dhowr ah oo aan bisha ku soo dhowaynayno. tillaabada koowaad waa duco, alla bari, inaan ilaahay weydiisanno tabaaraka wa tacaala inuu bisha nabad inagu gaadhsiiyo iyo caafimaad, siday ahaan jireen salafku ridwaanullaahi calayhim. bilaha ka horeeya ramadaanka ilaahay bay baryi jireen, waxayna weydiisan jireen inuu ramadaan gaadhsiiyo. marka ramadaan inaad gaadhaayey oo nolol iyo caafimaad iyo nabadgelyo ku gaadhaayey waa nicmo weyn. innagoo ogsoon dad fara badan oo sanadkii tegey inala soomay, bisha goobjoog ahaa, maanta inaan jaanis labaad la siinin, oo ama ay dhinteen ama duruufo adag ay ku jiraan oo u saamixi waayey inay bishanna ka faa'iidaystaan. marka inaan ilaahay barino tabaaraka wa tacaala, allahuma balliqna ramadaan wabaarik lana fi shacbaan. qodobkaasi waa qodob
qodobka labaadi wax weeye bisha haddii ilaahayna gaadhsiiyo inoo dhalato iyadana meesha ducaa ku jirta inaan ilaahay barino tabaaraka wa tacaala nabigeennu sala allahu calayhi wa aalihi wasalam bishu markay dhalato wuxuu ku ducaysan jiray ummaddiisana u jideeyey inuu yidhaahdo allahu akbar allahuma ahillahu calayna biاlamni waاliimaan waاlsalaamati waاlislaam waاltawfiiqi lima tuxibu watardaa ilaahay baa weyn ilaahu bisha waxaad noogu dhalisaa iimaan iyo ammaan waa laba aan kala maarmin ammaan dhulkanaga deegaanka meeshaan ku noolahay inaan ammaan ku helo naftannada iyo xoolahanaga iyo inaannu ammaan u helo iyo iimaan oo inaan caqiido saxa iyo iimaan saxa aadna siiso islaamnimo oo inaan ilaahay u hoggaansanno ah iyo nabadgeliyo yacni aafaadka laga nabadgalo oo jidhka iyo caafimaadka loo nabadgalo ilaahayow taas bisha noogu dhali waxaa intaasoo dhan ka muhiimsan in aadna waafajiso waxaad jeceshahay ilaahu bishan waxaad jeceshahay nawaafaji oo wuxuu alla jecel yahay muxuu yahay waa wixii khayr ah waa iimaanka waa cilmiga naafica waa camalka saalixa waa ilaahay daacadiisa waa khayraadkaasi ilaahay kuu dhowaynaya ilaahu khayraadka nawaafaji adaa jecel ee samayntooda nawaafaji markii bishu dhalatana sidaasaa iyadana fiican in lagu ducaysto waxaa kaloo saddexaad haddii bisha ilaahay nabadna u gaadhsiiyo in sidoo kaleeto nicmadaasi laga shukriyo oo aad u aragto ilaahay inuu wax qaaliya ku gaadhsiiyey wabitaali inaad tidhaahdo alxamdu lilaah qalbigaaga ay ku weynaato jaaniskan ilaahay ku siiyey carabka aad ka shukrido xubnahaaguna u diyaargaroobaan sidii ay nicmadan uga faa'iidaysan lahaayeen shukrigaas haddaad la timaado qalbiga iyo xubnaha iyo carabka leh ilaahay tabaaraka wa tacaala khayr badan buu kuu furayaa barakaad fara badan buu kuu furayaa lain shakartum laazidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid marka shukrigaas wuxuu tilmaamayaa inaad nicmada qiimaheeda garatay inaad ilaahaygii ku siiyey tabaaraka wa tacaala ku aqoonsatay ayaduna qodobkaas weeye qodobka shanaadi waxa weeye ama afaraadi alfaraxu waalibtihaaj biquduumi shahri ramadaan in bisha dhalashadeeda iyo inay inoo dhalato aan ku farxno oo aan bishaaraysanno maxaa yeelay nebigeennu sala allahu calayhi waaalihi wasalam bishu markay dhalato saxaabadiisu ugu bishaarayn jiray jaa'akum shahru ramadaan bishii ramadaan baa idiin timid markaasuu khayraadkeeda iyo khasaa'isteeda u sheegi jiray nebigu sal alla alay wasalam sidaas daraaddeed in aynu ku faraxno cagsiga dad badan oo bishu markay soo dhowaataba ka naxayaa jira daday culays ku tahay baa jira waana dadka inta badan shahawaadka adduunyada ku fogaaday oo cuntada iyo cabitaanka iyo shahawaadka adduunyadu ay jiidatay oo qaadatay dadkaasi waxaa dhibaya inay bisha iyada ilaahay tabaaraka wa tacaala wixii naftu baratay ay uga go'aan oo u daayaan taasaa dhibaysa saas daraaddeed markastoo bishu soo dhowaato culays bay ku tahay inta ay joogtana waa dhibsanayaan sidaasi ma aha ruuxa mu'minka ah ruuxa mu'minkaa dhinac kaluu ka fiirinaya dhinacuu ka fiirinaya waxa weeye waa masraco aakharo waay waa beer aakharo waa wixii janno aad ku geli lahayd ilaahay dembi dhaaf kaga heli lahayd
duunkaaga iyo aakhiradaadaba ku barakoobi lahayd xataa caafimaadka jidhkaaga caafimaadkaaga xataa aad ku heli lahayd weeyaan sidaas daraaddeed in aynu bishaaraysanno inuu ku faraxno bisha gaadhitaankeeda dii ilaahay tabaaraka watacaala ina gaadhsiiyo qodobka xigay wuxuu yahay oo bisha intaynan dhalanin loo baahan yahay inaynu ku dadaallo taqwiyatu liimaan wa tajdiidihi inaynu iimaanka xoojinno iimaanka cusboonaysiinno asbaab buuna leeyahay iyo wasaa'il buu leeyahay lianna iimaanka qalbigeenna ku jira dabcan carabkuna ku dhawaaqayo xubnuhuna samaynayaan oo practice garaynayaan iimaanku waa injinka inugu riixa khayrka inaad taacada samayso salaada si fiican u tukato khayrku kuu fududaado soonka aad soonto sadaqada bixiso wanaagga inaad la timaado waxa kuu sahlaya ee keenaya waa iimaanka iimaankaagu hadduu daciifo camalkaaguna waa daciifayaa laanna camalku waaba qayb iimaanka ka mida haddii iimaankaagu xoogaystana camalkaagaa xoogaysanaya waxaad adkaysi u yeelanaysaa khayraadka samayntooda bal waad macaansanaysaa oo culays kuguma noqonayaan saas daraaddeed baa allah tabaaraka watacaala markuu ka hadlayay munaafiqiinta alla wuxuu yidhi tabaaraka watacaala walaa ya'tuuna asalaata ilaa wahum kusaala walaa yunfiquuna ilaa wahum kaarihuun markay wax bixinayaanna iyagoo kahanayay bixiyaan markay salaad tukanayaanna iyagoo wahsanaday tukadaan salaada waxay yimaadaan iyagoo cag jiidaya iyagoo wahsanaya iyagoo caajisan iyagoo rafaadsan limaada lianna iimaankii cibaadadan u macaanayn lahaa baan jirin waa gaal uun tuka is yidhi waayo muxuu uga dhadhami cibaada u dhadhamayso laanna iimaan ma jiro iimaanku marna wuu xoogaystaa marna waa daciifa aliimaanu yaziidu wayanqus yaziidu biالطaaca wayanqusu bilmacsiya marka inaynu iimaanka kobcinno oo iimaanka siyaadinno wasaa'il iyo asbaab badan buu leeyahay waxaa jira waxyaalo badan oo iimaanka lagu kobciyo munaasabaad kale aan kaga hadalay ama muxuu ahay culimmadu ay ka hadleen saas daraaddeed iimaankaagu inuu xoogaysto macnaheedu waxa weeye bisha ramadaan inaad uga faa'iidaysato sida ugu fiican inaad uga faa'iidaysato sida ugu fiican wey macnaheedu oo khayrkii kuu dhadhamo taacadii kuu dhadhanto sadaqadii kuu fududaato soonkii kuu fududaado salaatuleylkii kuu fududaato iyo taraawiixdii khayraadkii inay kuu fududaan waxaa keenaya inuu iimaankaagu muxuu ahaayey uu xoogaysto ood iimaanka cusboonaysiiso marka nabigeennu inoo sheegay sal alla alay wasalam ina aliimaana layakhlaqu fii jawfi axadikum kama yakhlaqu athawb iimaanku qalbigiinnu ku duugoobaa siday maradu u duugowdoo kale fas'alu llaha an yujadida aliimaana fii quluubikum ilaaha weydiista inuu quluubtiinna iimaanka ku cusboonaysiiyo marka iimaanka in la cusboonaysiiyo iyadana waa qodob muhim ah si aan ugu diyaargarowno ka faa'iidaysiga bisha ramadaan waxaa kaleetoo qodob ah oo iyadana muhim ah alcaziima alsaadiqa inuu ruuxu la yimaado go'aan adag doonitaan dhab ah doonitaan dhab ah oo khayrkaa ilaahay uu siinayo tabaaraka watacaala iyo wakhtigaas jaaniskaa soo socda inuu ka faa'iidaysto waa inuu niyad dhab ah ula yimaado alcaziima asaadiqa haddii ilaahay tabaaraka watacaala qalbigaaga uu ka arko inaad khayr doon tahay doonidda khayrkuna dhabkaa yahay oo go'aan dhab ah aad la timaado qalbigaagaasuu ilaahay tabaaraka watacaala arkayaa waxa qalbigaaga ku jiruna wax kugu siinaya faidaa cazama alamru falow sadaquu allaha lakaana khayran lahu ilaahay haddaad run kula dhaqanto ood niyo saxa la timaado waxaad rabtay buu kuu xaqiijinaya man sadaqa allaha sadaqahu ruuxii ilaahay run u sheega oo run kula dhaqma oo qalbi dhab ah iyo daacadnimo ilaahay tabaaraka watacaala ula yimaada
إلهي وحو الربيب الله تبارك وتعالى وحقيقنا يا سيداس درادت بنبينا صلى الله عليه وسلم دعويكم إن بروحة كمدها اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد إله وحكو ويدي سنة إن أرنك كدل سقناده ودينت يا إيمانك يا طاعة إن دائمه إن أنا كلا حنين إن أنا كتجين إن أنا كجابين إله يقصك قضب كلامنا والعزيمة على الصدق والعزيمة على الرشد هجاج يتوسيد يا خيرك إن قرآن وياش ولا هذا الشيء وليه هي الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وجماع الأمر واحد شيء مركز دونس إن الحقيقة صلاة ساعة أصلها ومدك بعد إن النية يو دونيتان رب الله تبعده ومد الله إن هذا النية دي يدونيتان كي كان قنين كو أتكيسته وأتكسقنات إلى واحد ربتي أتكجاره لوضع متكود هذو ضعيفه واحد ربتي مجاري كرت ساس دراديد الله تبارك وتعالى الدومدي سماش وكفيري وقلبي إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إلهي قلبي إنه فير عمل كيننا وفيرنا إن يعلم الله في قلوبهم خيرا يؤتيهم خيرا مما أخذ يؤتكم خيرا مما أخذ منكم هدو إلهي قلبي إن خير كوجيه وحي اللي إذن كقاده وحكى في عمبو إلهي إذن سينيا لكن وقرمه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا هدو قلبي إن إلهي خير كوجيه هو هدي دونيتان يعني الصادقة يا عزيمة ربعة هدو إلهي قلبي إن كوجيه وحكى في عمبو إذن سينيا سيداس دراديد وحلو باهي هي إن أي تلقل كانوا نقضوا إن نيدين نقطه قلبي كانوا ديار قروبه كفائدي سيجا خيرات كبش نحيا الله إيو إنه سامي أوقفي عنك قاضنا بإذن الله تبارك وتعالى العزيمة الصادقة هذا لبع تهي وأن قان كاجا قلبي قوسا قونين ورب أهين يعني وحوي مالمو بعض لغيه بينات وحوغا أردو كدبنا أو شادو ورمانيس قدبك حقاي وحو يهي ولو باهي يهي رمضان كهر إن أينو محوها هاي لنمانو وقد ديار قرونا بيشا كسور دوينو وحويان التخطيط المسبق والتنظيم الأوقات إن أينو إنت بيشو سوقلين aynu nidaamsano waqtiga qorshe iyo plan sameysano adduunyadii baynu dhex joognaayo mashaaqishii adduunyada inagu furan iyadoo mashaaqishii adduunyadu nagu furan yihiin baan rabnaa haddana jaaniskan inaan ka faa'iideyso say ku dhici kartaa waxay ku dhici kartaa inuu ruuxu leeyahay qorshe leeyahay inuu plan leeyahay inuu nidaam leeyahay inaad nidaam dejisato jadwal dejisato waxa la yiraahdo muxuu ahaay برنامج عملي oo aad uga faa'iideysanayso bisha waa inaad leedahay haddii aadan wax nidaamsanin oodan plan samaysanin oodan qorshe lahayn aad bisha uga faa'iideysato kaliya waxay ku dhamaanaysaa waqtigii kugu dhaafaya khayr aad jeceshahay bas khayrkii waad jeceshahay quraanka inaad akhrido waad jeceshahay sadaqadii inaad baxsato waad jeceshahay habeenkii salaatu leelkii inaad intaad ka qaadato waad jeceshahay laakiin waxaa ku jiidanaya mashaaqishii kale mana aadan nidaam aad isku waafajiso maadan la imaanin waxaagu marka wuxuu ku dhamaanayaa umniyaad buu ku dhamaanayaa waan jeclahay ya waan rabaa intaana waxba ma laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli alkitab sidan aan jeclahay waxba ma waad jeceshahay waad rabtaa waad doonaysaa laakiin waa inaad la timaado sababtii iyo dariiqii aad ku xaqiijin lahayd مثلا تصالح دان السيو وحد ربطها بيش رمضان إن الدور قور القرآن كرميسو طيب والنية في عنه لكن هذا دتشنين جدول كي برنامج كي كفل لهي وحو اسكن قانون شيء دونيس لكن النظام لهي سيدا تكون حقيقة سوي أذكت وين النقطة
quraanka waxaan dhamaynayaa bisha ramadaan 5 goor 6 bariya ugu horeysa hal mar baan dhamaynayaa 6 bari waxaan ku dhamaynayaa salaada subax kadib intaasoo juz baan akhrinayaa toorkii intaasoo juz baan akhrinayaa maghribkii cishaha intaasaan akhrinayaa habeenkii intaasaan akhrinayaa jadwalka markaas saa u dejisato haddana waa inaad iltizaamto waa inaad ku taqayudo oodan jabinin inta suurtagal ah wixii marka waa ku habaysan yahay jadwalkaad raaci lahayd waa ku degan yahay waqtigii waa ku nadaamsan yahay sida inaad u ilaaliso haddaad isku daydo markaasi waxaad rabto dhan waa fulinaysa inaad sadaqa baxsato rabtaa maalan sadaqadu bisha ramadaan waxyaalaha ugu fiican bay ka mid tahay inaad sadaqa baxsato rabtaa tayib waxaa kugu furan baahidii adduunyada wixii aad baxsan lahayd aaway haddaadan jadwal u samaynin oodan sii diyaarinin oo qorshihii aadan u samaynin wixii aad baxsan lahayd waxay uun dhammaan bishu adigoo oo leh waxbaan baxsan rabaa jaanisku waa ku dhaafaya marka wax weeye bini aadamku kama soo hadho qorshe kama soo hadho bini aadamku plan kama soo hadho marka inaad plan samayso aad khayraadkan ku fulinayso waa laga maarmaan cumraad rabtaa bisha ramadaan inaad soo cumraysato waa inaad qorshihii cumrada aad sii dejiso ramadaan ka hor dhaqaalaheedii safarkeedii shuruudeedii waa inaad sii dejiso sida adduunyadeennaba aynu plaanka ugu samaynayno iyo qorshaha ugu samaynayno iyo aakhiradeenna ka mudan marka jaanisyadan oo kaleeto waxay u baahan yihiin in la sameeyo takhtiit musbaqa iyo tandiim waqtiga inaad nidaamiso jadwal u samayso barnaamij camali ah oo joogto ku ah inaad leedahay oo aad ku fushanayso khayraadkii ku qorshaysnaa inaad bisha ramadaan la timaado qodobka xiga ay wuxuu yahay تعلم الأحكام الضرورية إن برنو بشو إنتيسن سوقلين أحكام تلقى مارمانك كسابسن عباداتك أن سمينين هدي آدم برنين وذا فقه كذا يالنين وذا فهمين وحد عيسى إن الدداشو دذلك أقول ونقضه هل بعد لولس لأنه وحوي عبادته هدينا كسل سنين أقوني علمي والديدي إلهي كأقبل ما يو لأنه وحي خلاف يساء حديقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء هدو سنة النبي خلافنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولقوسو الديدية سيدا بعد عباداتك قوة فتشن كرتا سنة طريق النبي صلى الله عليه وسلم هل قضب وين هذا قونت هذا لا ذهب وين هذا قونت هذا لا قرنيسو شيء والبيش هديجيس وين تقرنيسو شيء والبصاد الصمينيس وين هذا وحي أقوني فقه أولاده هديك لو حد عيسى أم دعي كرتبة إن تدال بدن أد بحسه تدال كأقون ونقضه مد خسارة النبي كان حكسه صلى الله عليه وسلم إنه يلي رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ضد بدن الصومن صوم كودا وحبا كيلي مايا اون يقاچا بس ضد بدن وحبينكي سلاد تاغن تاغنيدو دا كهلي مايا waxaan soo jeedahay ajir mala dad badan ba cibaadeysanaya laakiin cibaadadoodu khaldan tahay si ayna kaaga khaldamin oo cibaado sax ah oo miisaanka xasanaadka ku gasho oo janno ku gasho oo cadaab kaga badbaado oo ilaahay ridiisa ku gaadho si ay cibaadadaadu u noqoto iyo waxaad samaynayso waa laga maarmaan inaad aqoon u yeelato waxaad samaynayso marka cilmigu waa laga maarmaan saas daraadeed baa wax walba laga hormariyay wax walba ayaa laga hormariyay fa'lam annahu la ilaha illa allah al-ilmu qabla al-qawli wal-amal ilmigu isaga ka horeeya hadalka iyo ficilka labadaba intaadan ku hadlin baro intaadan akhriin baro intaadan samaynin baro intaadan ku tilaabsanin baro intaadan cibaadaysanin baro intaadan soomin baro intaadan tukanin baro aqoontu waa laga maarmaan fa'lam annahu la ilaha illa allah saas daraadeed baa nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam ruuxa khayriyadiisa wuxuu ku xidhay fahamkiisa diinta
man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ruuxuu ilaahay khayr la rabo diintuu fahansiiyaa lanna fahamka diintaba asaas u ah wax kastoo ilaahay loogu dhowaanayo tabaaraka wa tacaala wax kastoo ilaahay kuu dhowaynaya fahamka diinta asal u ah xataa iimaanka iyo caqiidadu haddayna cilmi ku salaysnayn socon mayso faclam annahu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah haddayna cilmiyaysnayn socon mayso ya laa ilaaha ila allah waa inay cilmiyaysan tahay salaaddii waa inay cilmiyaysan tahay shay walba waa inaynu ku salayno aqoon ku salayno waay saas daraaddeed bisha soo socota ramadaanka iyo sidaynu uga faa'iidaysan lahayn waa inaan aqoonteeda leenahay haddaad akhrin karto akhri haddaad leedahay awood inaad akhrido kutubta wixii laga qoray akhri taalaco haddaadan akhrin karaynin dhegayso wax badan baa laga duubay wax badan baa laga yidhi dhegayso haddii ayna suurtagal ku ahayn dadaal kale la imow oo weydii wixii kaa qarsooma wixii aad garan weydo weydii su-aasha kaalmayso fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun sidaas daraaddeed cilmiga iyo fiqhiga axkaamta bisha ku saabsan waa laga maarmaa ruuxa aqoonta leh waxaa laga yaabaa camal yar oo aan culays badan lahayn in uu la yimaado oo mid maanta dhan dadaalahayay inuu ka fadli badnaado laanna wuxuu garanayaa meesha uu ka qabanayuu garanayaa kii nabigeennu soo maray sal alla alay wasalam ee haweenka yani islaan wardinaysa oo ku soo noqday iyadoo meeshii fadhida wardinaysa oo uu ku yidhi kelimaad baan idhi buu nebigu sal alla alay wasalam waxaad maanta dhalhayd oo dhan ka fadli badan marka meel gaaban buu ruuxu hadduu aqoonta leeyahay meel gaaban iyo jid gaaban buu jannada iyo wanaagga ku gaadhi karaa hadduusan aqoonteeda lahaynna dariiq dheer buu marayaa waa rafaadayaa waa kadeedmayaa waxaana laga yaabaa wixii uu socday inuusan gaadhin inuusan helin baa dhici karaysa saas daraaddeed si ahaanteedaba waa inaan ku dadaalno barashada diinta bishan inagu soo foodlana gaar ahaan waa inaynu axkaamteeda baranno waxay yidhahdaan culimmadu cilmigu waa laba qaybood mid fardu kifaaya xukumka cilmiga barashadiisa cilmiga diinta fardu kifaaya iyo fardu cayn fardu caynku waa midka ruux kasta laga rabo dalabulcilmi fariida calaa kulli muslim waa noocee cibaadada iyo camalka marka aad samaynayso cilmigiisu waajib buu kugu yahay haddaad doonayso inaad ganacsi gasho ganacsiga cilmigiisu markaasuu kugu waajibaya haddaad rabto inaad xaj aado cilmiga xajka ku saabsan iyo axkaamtiisu markaasay laasim kugu noqoneen intaadan samaynin baro soonkii markuu yimaado axkaamtiisa waa in la barto wahaakada shay kasta marka uu ruuxu galayo waa inuu aqoonku galo waay qodobada muhimka waxaa ka mid ah oo bishan intayna soo gelin la doonayo inuu uu sii diyaargarowno ama ku soo dhaweyno waxa la yidhaahdo at-tawba as-saadiqa min jamiic ad-dunuub inaynu toobad dhab alla nimaadno dunuubtoo dhanna aan ka toobad keenno toobaddu macnaheedu wax weeyaan shuruudeeda markay wadato ama shuruudeedu inaad dembiga aad ku jirto ka tagto inaad go'aansato inaadan ku noqonaynin in wixii horay kaaga dhacay aad ka qoomamooto xuquuq bini aadam hadday tahay waa inaad guddo ama xalaashato towbad dhab aynaynu la nimaadno towbaddaasi mar walba waa u baahanna mar walba laanna mar walba dembigeennaa badan kullu bani aadam khataa wa khayru lkhataa'iina atawaabuun mar walba waa khaldamayna ma jirto maalin aynaan dembi gelaynin waa yarya sidaas daraaddeed towbadda mar walba waa u baahannahay bisha ramadaan markay soo dhowdahayna si khaasa waa usii baahannahay allah tabaaraka wa tacaala liibaanteennuu ku xidhay watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun mu'miniintiiyow ilaahay u soo noqda towbad keena
dembiyada ka soo laabta si aad u liibaantaan la'allakum tuflihun wad liibaanaysan marka liibaanteena marka ku xidhan waana sifaadka dadka muuminiinta ilaahay siiyay والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله وحيري مؤمنين متقين محسنين تدتك ونايسا وكوا مركي الظلم سميا فاحشة بفولح مركي سميا أما النفط أي ظلميان وخلط قلان إلهي بحسوستان ذكروا الله إلهي بحسوستان عظمتي سي حسوستان وحي حسوستان عقوبتي سي حسوستان حسوس باقش إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون مركو الشيطان تابتو والشيطان حمان قليه والدم بكردو وي حسوستان يعني وحي حسوستان خلط كي قالين ويسقرتان ويسحسوستان فإذا هم مبصرون مركاسي أركيا وحي أي قالني خلط كبي أركيا مركا خلط كودي مركو مغضنة وإنو شيطان ضوف صدي وخلط قلي مركا كبر أروقان محي سمينيا ويصون قنيا المركا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إلهي بيدم بداف ويدي سنيا مركا إنين صون لابنو إلهي أصون قنو دم بداف ويدي سنو حلي والباء xaalad walba dambi kasta laga toobad keeno ku aadan ogeyn iyo ku aad og tahay nabigeena wuxuu dhigi jiray sallallahu alayhi wasallam ilaahu dambigayga ii dhaaf midaan ogahay iyo midaanan ogeynba ii dhaaf buu nabigu dhigi jiray sallallahu alayhi wasallam laana intaynaan ogeyn baaba badanba intaynu gallay iska halmaanay laakiin diiwaanka ku yaaloon yaani la halmaamin ya aad u badan marka wixii hore inaan ka toobad keenno safxa cusub inaynu la bilowno Allah tabaaraka wa taala bishan barakaysa safxa cusub maxay keenaysaa taasi waxay keenaysaa marka toobad la timaado toobadu waxay keenaysaa qalbigiiba sifaysmaya qalbigiiba daahir noqonaya qalbigu markuu daahir noqdo xoog buu yeelanaya wuxuu u xoogeysanayaa daacada wuxuu macaansanayaa daacada khayrkii baa u dhadhamaya waana midda nabigu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam markuu fasirayay aayadda quraanka kalla bal raana ala qulubihim ma kanu yaksibun nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam adoonku markuu dambaabo oo uu dambi galo hadduu dambigiisa iskarto oo soo noqdo oo ilaahay xusuusto oo dambi ka toobad keeno qalbigiisa waa la sifaynayaa raadkii iyo xumaantii dambigu qalbiga ku reebay baa laga sifaynaya daxashii baa laga hagaajinaya wasakhdii baa laga dhaqaya hadduu dambigii ku noqdo markaasi wax weeye dambigii wuxuu noqonayaa marka madow iyo wasakh qalbiga fuusha oo ku fida oo isagoo dhan wada daboosha taasaana laga wadaa kalla bal raana ala qulubihim ma kanu yaksibun marka waxa loo baahan yahay in uu adoonku mar walba soo laabto dambidaaf weydiisto haddii qalbigaagu uu saafin noqdo oo wasakhda iyo dunuubta iyo waxa saarani ay ka kacdo markaasi waxaad arkaysaa adigoo quraankii macaansanaya adoo soonkii macaansanaya adoo sadaqadii macaansanaya adoo akhlaaqdaadu wanaagsanaatay adoo aakhara u jeeda adduunyadiina kula noqotay waxaan macno lahayn adigoo isbedelay baad arkaysaa laana wax weeye bini aadamka meesha khatarta ah ee ama hagaagiisu ka yimaado ama halowgiisu ka yimaado waa qalbiga way sida nabiga inoo sheegay sallallahu alayhi wa alihi wasallam marka tawbadaasi waa muhiim inaad ilaahay tabaaraka wa taala u soo noqoto tawbad keento tawbadaasi tawbad nasuuxa shuruudeedii wadata adigoo keliga ah inaad ilaahay tabaaraka wa taala u tawbad keento ayadana waxay ka mid tahay waxyaalaha inoo kaalmaynaya oo bishan barakaysan ka faa'iideysigeeda si fiican uga faa'iideysano inoogu kaalmeynaya ka mid tahay at-tawba as-saadiqa tawbad dab aynaynu la nimaadno ilaahayna u soo noqono tabaaraka wa taala waxa ka mid ah nabigeenu inoo jeeday sallallahu alayhi wasallam bisha hadda aan ku jirno waa shacbaan oo ilaa 10 bari nooga laaban tahay taqriiban nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama fi sahihayn
min xadiidi caaisha bilaha ramadaan marka laga yimaado bisha soonkiisu ugu badan yahay waxay ahayd bisha shacbaan bay ahayd caaisha waxay leedahay kaana yasuumu kullahu kaana yasuumuhu ilaa qaliilan shacbaan oo dhan wuu soomi jiray tana waxay tidhi shacbaan wuu soomi jiray ilaa in yar mooye kulliga bimacnaa waxaa laga wadaa bimacnaa aljulli baa laga wadaa yacni bisha inteeda badan wuu soomi jiray waa hadyigii nabigeena sal alla alay slam culimmadu waxay leeyihiin bisha ramadaan bisha shacbaan soonkeedu waa nooc tababar ah waaye ruuxu wuxuu u tababaranayaa bisha ramadaan soonkeedii baa loo tababaranayaa laanna ruuxu hadduu shacbaan soomo inteeda badan asagoo soonkii la qabsaday oo naftiisu baratay ayaa ramadaan soo gelayaa culays kuma hayo marka soonka ramadaan culays ku noqon maayo waa tamriin bay leeyihiin culimmada qaarkood oo waa nooc layliyad ah naftii oo loo layliyayo inay ramadaanka soonkiisa aynan ku adkaanin marka shacbaan in la soomo ayadana nabigeena sal alla alay wasalam bay ka sugan tahay waxaa jira xadiid dhahaya ida intasafa ramadaan shacbaan baa dhilaha bisha shacbaan haddii nis ay noqoto ha soomina xadiidkaasi sixadiisa waa la isku haystaa axaadiid kale oo ka xoog badan iyuuna ka hor imaanaya oo uu ka mid yahay xadiidkan hadda aan sheegayna nebigu leeyahy sal alla alay wasalam muxuu ahaayey bisha shacbaan badankeed wuu soomi jiray ilaa caaisha oo uu ka mid leeyahay xadiidka saxiixaynka ku yimid ee nebigu yidhi sal alla alay wasalam ramadaan ha kala hormarina maalin ama laba beri soonkooda ha ka hormarinina ilaa ruux soon caadaa lahaan jiray mooye bimacnaa markii bishu dhalan rabto maalin ka laaban tahay inaad tidhaahdo maantaan soomaya ama laba beri ka laaban tahay muxuu ahay labadan beri baan soomaya horeyna maadan u soo soomin caadana kuma ahayn oo isniin aad soontay iyo khamiis aad soontay iyo caado ku ahaydna kuma hagaagin soon aad bilaabayso labada beri iyo maalinka ramadaan ka horeeya abaa la diiday maxaa laga fahmayaa intaa wixii ka horeeya in la soomi karayo macnaheedu waxa weeyaan cala saxiix waxa weeye waa la soomi karaa bisha shacbaan oo dhan inteeda badan waa la soomi karayaa sida axaadiista saxiixa nebiga kaga sugan sala allahu calayhi waaalihi wasalam taasina waa tababar oo waa loo sii tababaranaya waxay u baahan tahay awjuhda khayrka ee aadka u faraha badan bishaa barakaysan in aynu isku dayno inaynu inta ugu fiican ka qaadano dabcan khayrku waa fara badan yahay khayrku waa fara badan yahay khayrkaa faraha badan mid walba wax ku darso mid walba wax ku darso nebigu sal alla alay slam saxaabadiisa markuu ku yidhi muxuu ahaayey cid siyaarata waryaa maanta cid siyaartay waryaa maanta muxuu ahaayey janaaso raacay waryaa maanta intaas sameeyey ee nebigu marka kadib yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ruux intaasi hal maalin lama wada yimaado ilaa jannaduu galaa buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam marka isku day kulli inaad mid walba wax ku darsato kii aad janno ku geli lahayd allah garan kulli hadday kuu ururaan waa khayr kordhay waaye saas daraaddeed isku day sadaqadii hadday tahay muxuu ahaayey qur-aanka akhriskiisii haddii ay tahay soonkii oo isaga laasima haddii uu yahay dadka oo muxuu ahay bini aadamkii khalqigaoo la anfaco hadday tahay diintoo la faafiyo dadka wax loo sheego haddii ay tahay muxuu ahaayey salaaddii taraawiixda hadday tahay khayraadka cumradii hadday suurtagal kuu tahay khayraadka faraha badan muxuu ahay inaad kulli wixii aad ka heli karto aad ka qaadato marka juhdi iyo dadaal siyaadaa inaynu bixinno ayaa walaalayaal laynooga baahan yahay bishan barakaysan haddii ilaahay nabad inugu gaadhsiiyo inta ka horraysana sidii aynu uga faa'iidaysan lahay inaynu isu diyaarinno qayb waxaa ka ah isu diyaarintaasi ruuxu hadduu mashaaqil adduunyo leeyahay adduunyo badan baa inugu furan inuu intii uu adduunyadiisa koobi karo bishan ramadaan inuu koobo soo ururiso saynan ku mashquulinin inaad soo ururiso inkastoo adduunyada lafteeda
haddii niyada la hagaajiyo niyadu haddii la hagaajiyo adduunyada lafteedii baa waxay isu bedeli kartaa camal aakhira isu bedeli kartaa haddana maca daalika camalkii baa kala fadli badan inaynu marka isku dayno insha allahu tacaala in aynu wakhtigeenna intiisa badan aynu taacada gelino waxaa jira khayraad laga yaabo inay ayna idinla muuqanin inay taaco tahay haddana maca daalika ilaahay agtiisa daaco ka ah hadday saxaabada iyo salafku ridwaanullaahi calayhim hurdadooda ilaahay ugu dhowaan jireen sida ay istaagga ay habeenkii salaada u istaagayaanba u xisaabsanayaan bay hurdadana u xisaabsan jireen ajir ka helayaan haddii nabigeennu yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam wa fii budci axadikum sadaqa ruuxu inuu shahwadiisa xalaal ku guto ajir buu ka helaya waa sadaqa salawaatu rabbi wasalaamu calayh in aad muxuu ahaay dadkii soomanaa aad afur u diyaarisaan inaad jikada u gashaan in aad muxuu ahaay yani waxa waa nafci waay si ahaanteeda haddaad niyad wanaagsan ula timaadaan ayadaa wax badan ka fadli badan leanna waxay gelaysaa ruuxii ruux sooman afuriya ajirkiisoo kaleu leeyahay leanna ruuxii soo diyaariyey jikada u galay cuntadan kariyey ku rafaaday kii bixiyey waa uga dadaal badan yahay saas daraaddeed khayraad badan baa meelaha ku jira oo yani waxba aan la sahlan karin laakiin waa inaad ku talagasho niyad inaad ula timaado inaad niyeysato inaad cibaado ku jirto ilaahay ajir kaga raadinayso xataa adigu diyaarso carruurtaada u diyaari dad kale u diyaari muddada aad ku jirteed muxuu ahay ama jikada ku jirto ama hawsha aad ku jirto niyad wanaagsan haddaad la timaado shaki ma laha iyada lafteeda cibaada bal waa cibaado weyn nabigeennu wuxuu yidhi sal alla lay wasalam xadiis saxiixa wakiila rasuulku sal alla lay wasalam khayru nnaas anfacuhum linnaas dadka waxaa ugu khayr badan ruuxa dadka ugu nafci badan inaad khalqiga anfacdo xooggaaga ku anfacdo cilmigaaga ku anfacdo caqligaaga ku anfacdo xoolahaaga ku anfacdo inaad khalqiga ilaahay anfacdo waa cibaado weyn cibaado ilaahay tabaaraka wa tacaala loogu dhowaado cibaadadka ugu waaweyn bay ka mid tahay marka ilaahay tawfiiqda hayna waafajiyo bisha barakaysanna maalmuhu ka laaban yihiinna ilaahay tabaaraka wa tacaala nabad iyo caafimaad allah inugu gaadhsiiyo haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala nabad iyo caafimaad inugu gaadhsiiyana waxaan weydiisanaynaa allah tabaaraka wa tacaala inuuna waafajiyo wuxuu jecel yahay oo bishaa dadka ka faa'iidaysta faa'iidada ugu badan ka qaataay in ilaahay tabaaraka wa tacaala inaga dhigo inooguna dembi dhaafo ayaan allah weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala inaga dhigo bishaasi khayrka iyo wanaagga aan ka qaadanayno tii aan jannada ilaahay ku geli lahayn cadaabka ilaahay kaga badbaadi lahayn ilaahay ridihiisana tabaaraka wa tacaala aan ku gaadhi lahayn inuu ilaahay inooga dhigo ayaan weydiisanaynaa adaa billahi tawfiiq wasali allahuma waslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi waslem su-aalkani wuxuu leeyahay ruux aan dayn ku lahaa dayntii zake ma u niyoon karaa intaan u cafiyo zake ma ka dhigi karaa jawaabtu waxa weeye waa maya dayn kaa maqan zake loolama niyoon karo maxaa yeelay marmarka qaarkood haddii sidaa la yidhaahdo ruuxu wuxuu soo saari kari waayey oo uu ka quustay buu sake ka dhigayaa saas daraaddeed culimmada badankood waxay qabaan dayn maqan inaan sake laga dhigi karin wixii gacantaada ku jira jeebkaaga ku jira ayaad sakada ka bixinaysa
leedahay anigoo soo horay igu lahaa hadduu soonkii kale igu soo galo maxaan samaynayaa بسم الله الرحمن الرحيم horta soonka la isku leeyahay ee qallaha ah in la dib dhigo ilaa soon kale soo galo adoo qallayn karo soomi karaya waa khalad Aisha ummul mu'miniin radiyallahu ta'ala anhuma waxay leedahay soon baa iga tagi jiray oo la qalla ahaan la igu lahaa sanadka inaan soomo iima suurtoobi jirin nabigoo joogita nabiga dartiisa sallallahu alayhi wasallam yani maadaama nabigu joogo isagoo nabigu joogo haddana inay soontay dhibsan jirtay markaasaa shacbaan baan soo gaari jiray bisha ramadaan ka horeysa bishaasaan soomi jiray bishaas ayaan soomi jiray waana bisha nabigu u badnaa soonkeeda sallallahu alayhi wasallam yani markuu nabigu soomo bisha ayaduna qallayn jirtay culimadu waxay ka fahmeen xadiidkaas in la dib dhigo qallihii ilaa ramadaan kale soo galo waa qalad allahumma haddii uu ruuxu cudurdaar leeyahay oo dibdhigaasi dan kaliftay ay jirto markaa dambi ma leh laba gooraba waxaa loo baahan yahay wixii kaa tegay inaad qallayso bisha ramadaan markay soo gasho iyada soon markaad soonto kadibna si degdega waxaad u qallaysaa maalmihii lagugu lahaa ee soonkii hore kaaga hadhsanaa si degdega u qallee raashiin ma la raacinayaa mise maalmihii qallahooda basaa layga rabaa waa masala khilaafiya fuqahada dhexdooda alimaamu shaafici imaamu axmed ayaa waxay qabaan haddii ramadaan kale kugu soo gaadho raashiin baad ku dari qallaha raashiin baad raacinaysaa laakiin آثار صحابي وحاسي عسكنيان ملأ دليل هي النص مرفوعة آية قرآن أما حديث النبي مجره سيداس دراديد سيدا صحدا أما حوق بدني وحوي وحلقة بهي قلة وبلغة الربا إن قليسو حديث سبب الآن صون كدب ديكتين إن قدرت التوبة قدرت هذه صون كلا جارسي سيدون عذر دار لهين وصومي كره taana marka waxay u baahan tahay inaad ilaahay dambi dhaaf weydiisato oo toobad ku darto wallahu a'lam gabadha waxay leedahay markii lii meherinaay guurkeedii magac ugu qoran kibaandhada ayaa lagu meheriyay magacaasna magaceeda saxda ma aha marka ayada magaceeda iyo magaca aabaheedba ama magaca aabaheed ayaana saxsanayn marka meherkaas ma saxay ayada miyuu ku dhacayaan mise qof kale magacan kibaandhada kuugu qoran kanna waa lagu yidhaahdaa kii kalena waa lagu dhahaa labada magac waadaa iskale midna waa kii rasmiga ahaa midna dukumentigu kuugu qoran yahay haddii kii dukumentiga kuugu qornaa lagugu meheriyo cidda ku mehersanaysa iyo cidda markhaatiyadaana iyo cidda weliga kuwa ana ay garanayso cidda aad tahay mushkilad ma samaynayso magaca la sheegay maka dukumentiga ku qoran baa mise waa kii asalka ahaa wax mushkilaa ma samaynayso muhiimadda wax weeyaan cidda la guurinayo waa la garan markhaatiyaduna way garanayaan dadka meesha joogaan ka guursanayana wuu garanayaa magacanna waa magac muxuu ahay loo garanayo waa intaasaa muhiima caqdiguna waa asaxaya wallahu aclam
maamada xanuunsanaysa ee xanuun uga tegay soonka haddana weli xanuunsanaysa soonkani hadduu soo galo oo ay haddana soomi kari weydo xanuun dartii way iska afuraysaa kadibna xanuunkeeda waa la baxnaaninayaa laba mid xanuunkaasi inuu noqdo xanuun rajo leh oo dhakhaatiirtu muujiyaan inuu rajo leeyahay ka caafimaadi doonto ama ka caafimaadi karto caafimaadka ilaahay baa haye hadday rajadaasi jirto oo uusan xanuun quusada ahayn way iska sugaysaa way iska afuri way iska sugi inta ilaahay ka caafinayo kadib way qallayn hadday caafimaado haddii dhakhaatiirtu ay muujiyaan xanuunkani inuusan rajo lahayn oo inuu ka sii dara mooye ka sorrayn uusan lahayn hadday muujiyaan markaa way iska afuri raashiin baana laga bixinayaa raashiin baa laga bixinayaa xanuunnada laga quustay aan lala soomi karin rajadana lahayn sidaasaa loola dhaqmaa beddelkii soonka raashiin baa gelaya ruuxuna laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha wuu iska afurayaa waxayna ka mid tahay taysiirka iyo fududaynta shareecadeenna ay ka mid tahay aadamaha iyo duruuftiisay la socotaa markay hawshu ku adkaato waa loo fududayn markuu cidhiidhi karo waa laga waasicin wahaakada iyadoo marka horeba diinteennu fududayd ayaa haddana markay ruuxa ku adkaato fudayd baa lasii raadinaya waa laga fududaynaya su-aasha labaad oo ah gabadha nuujinaysay bishii hore sanadkii hore sidaana soonka uga tegay haddana nuujinaysa maxay samayni haddayna la soomi karin way iska afuri ayaduna way afuri xadiid baa nas ku ah nabigeenna sal alla alay wasalam xadiidka anas bin malikin alkacbi wuxuu nabigu yidhi sal alla alay wasalam ilaahay haweenta nuujinaysa iyo midda uur kale wuxuu ka dejiyey soonka bimacnaa way iska afuri karaan laanna waxa weeye xaaladdaa iyada ah oo iyaduna way jilicsan tahay ruux bini aadam oo kaleoo jilicsanna wuu ku tacalluqaa ayadiina way jilicsan tahay waa markay uurka leedahay iyo markay nuujinayso ilmo yar oo iyada uun ku tacalluqana waa muxuu ahaay waa ku xidhan yahay maslaxadaasaa marka la fiirinaya marka way iska afuri hadhow markay jaanis hesho bay qallayni saasaa loo badan yahay ma wax kale laga rabaa aan qallo ahayn maya cala saxiix sida xoogga badan waxaa laga rabaa uun inay qallayso maalmihii ka tegay xilligay jaanis hesho xilligii ay jaanis hesho ayay qallayni insha allahu tacaala intaa un baana laga rabaa sidoo kaleeto haweenayda soonkii ka tagtay laakiin garan weyday sama malin soos maayn maalmihii ka tegey cadadkoodii garan weyday maxay samaynay waxay samaynay way ijtihaadi way dadaali maskaxday ka shaqaysiini way fikiri inay xusuustay isku day intay ka xusuustay qallaynay intay xusuusatay qallaynay kadibna waxay badsanaysaa soonka sunnada ah lanna sida salaada ku soo aroortay waxa ugu horeeya adoonka laga xisaabinayo nabigu wuxuu ahaa salaada sallallahu alayhi wasallam hadday salaadu u hagaagto adoonka wixii kale waa u hagaagaya hadday salaadu wax ka halaabaan alla wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala fiiriya adoonkaygu sunna maleeya salaad sunna maleeya maleeya dalika fadlullah soonka sunnada marka wixii salaada ka khaldamay baa loogu buuxinaya marka cibaadaadka sunnada ah sunanka ah nawaafisha ah waxay kabaan waajibaadkay kabaan marka haddii intaad xusuusan kartana waad soomi wixii aad xusuusan weydana cibaadaadka soonka sunnaha ayaad badsanaysaa insha allahu tacaala nacam su-aasha hore oo ah Soomaaliya ma lagu ducaysan karaa salaada dhexdeeda oo mas'ala khilaafiye weey mas'ala khilaafiye haddii uu ruuxu luqadda carabiga garanayo
salaada dhexdeeda luqad aan carabi ahayn kuma ducaysan karo hadduu ducooyinkii carabigaa garanayo ama waxa uu doonayo inuu ilaahay weydiisto uu luqadda carabiga ku cabiri karo marka looma ogola luqad kale inuu salaada dhexdeeda ku ducaysto hadduusan garanaynin luqaddii carabiga ahayd ee uu ku ducaysan lahaa luqad kale ama soomaali ha noqoto ama ingiriis ha noqoto ama waxay dooni ha noqoto sawaaxili ha noqoto luqad kale salaada dhexdeeda ma ku ducaysan karaa waa masale ay culimmadu iyo fuqahadu ku kala aragti beddelan yihiin waxaana moodaa acdalu alaqwaal inuu yahay imaamu shaafici iyo aimo kala maray in ruuxa aan garanaynin luqadda carabiga luqad kale inuu salaada dhexdeeda ku ducaysan karo waa sax bay leeyihin ama soomaali ha noqoto ama luqad kale ha noqoto fuqaha badan baa sidaa maraya oo ka soo yacni u ruqsaynaya ama u oggolaanaya ruuxa aan luqadda carabiga garanayn oo dantiisii aan ku sheegan karayn laanna ruuxu waxaa la rabaa markuu ducaysanayo ducana waa duco caam ah oo jannada igee ilaah cadaabka iga badbaadi oo la qaban karo ducana waa duco khaasa dan khaasa oo kugu dheggan baad rabtaa inaad ilaahay aad weydiisato tabaaraka wa tacaala markaana luqaddii carabiga kuma cabiri kartid maxaad samayni waayo salaadana dhexdeedu khaasatan sujuudda waa xilliyada ducada la aqbalo almuhim culimmada qaar baa qaba inay bannaan tahay oo ay u bannaan tahay ruuxaan carabiga garanaynin su-aasha labaad ducooyinka qur-aanka ku jira sujuudda ma lagu ducaysan karaa nebiga sal alla alay wasalam horta wuxuu yidhi waxaa la ii diiday in aan qur-aanka akhriyo markaan rukuucsanahay iyo markaan sujuudsanahay markuu ruuxu rukuucsan yahay qur-aan ma akhrin karo ruuxu markuu sujuudsan yahayna qur-aan ma akhrin karo rukuucda nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam facadimuu fiihi rabb ilaahay ku weyneeye sujuuddana nebigu wuxuu yidhi sal alla alay slam ku ducaysta faqaminuna yustajaaba lakum waxay u dhowdahay in laydinka aqbalo amaa qur-aanka akhriskiisu waa markuu ruuxu taagan yahay ilan salaaddii qaybaheeda kala duwan qaybba waxbaa lagu aadiyey marka rukuucda iyo sujuuddu ma laha qur-aan akhris ma leh ayib ducooyinka qur-aanka ku soo arooray marka la sujuudsan yahay duco ahaan ma loo akhrisan karaa culimmada qaar baa waxay leeyihin haddii uusan qur-aan ahaan ula qastin ee uu duco ahaan ula qasto ducay markaa noqonaysa duco ahaan markaasi waa u akhrisan karaa bay leeyihiin wallahu aclam مسألة خلافية ruuxa dadka wax ka sheega oo ama culimada ha noqoto ama muslimiinta kaleba ha noqotee ruuxa duraya wax ka sheegaya waajibku waxa weeye in loo naseexeeyo jariir bn cabdillaahi albajali radia allahu tacaala canhu wuxuu yidhi nebiga sal alla alay wasalam waxaan bayca iyo ballan kula galay salaadda inaan toosiyo sakadana bixiyo muslim kastana u naseexeeyo marka muslimku wuxuu kaa mudaya naseexu kaa mudaya gabadhaas ku fitnaysan culimmada inay wax ka sheegto hilibkooda ay cunto waxay kaa mudan tahay inaad u naseexayso oo aad wacdido oo aad tidhaahdo meeshani waa meel lagu baaba'o caammatulmuslimiin guud ahaan muslimiintaba hilibkoodu waa khatar haddana khaasada mu'miniinta kuwooda si khaaska ah culimmadu ka mid yihiin ducaaddu ka mid yihiin dadka cibaadada badan ka mid yihiin zuhaaddu ka mid yihiin
mu'miniinta khaasadoodu haddana waa ka sii khatarsan tahay yacni waxa weeye dad waxaa jira markaad agtooda ka dhowaato ilaahay uu dagaal kula gelayaa jira man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb ilaahay baa dhahaya tabaaraka wa tacaala qaar waxaa jira haddayba ilaahay ay ku habaaraan oo intaad dulmido hal mar ay gacanta taagaan habaarkooda aan la soo celinaynin baa jira oo markaaba kula helayaa jira yaa marka addoommada ilaahay waa badan yihiin aakharaba intaan la gaadhin bay u badan tahay dulmiga iyo aflagaadada iyo cayda iyo xanta iyo waxyaalahan dadka aad u geysanayso inta badan aakharaba loo dibdhigi maayo way soo degdegi nabigeennu wuxu uhi sal lla alay slam laba dembi iyagoo aakhare kaydkoodu jiro bay haddana adduunka soo degdegaan waa qarabagoysnimada iyo baqyiga iyo gardarrada ma daahaan ruuxii oon adduunka ka tegin buu cuquubadeeda la kulmayaa cuquubada uu adduunka kula kulmayana ma aha tii aakhare in laga cafiyeye aakharena kayd baa u yaalla marka nasiixu u baahan yahay ruuxa noocaas oo kalea luxuumu ulculamaa masmuuma yani waxay dhihi jireen culimmadu hilibka culimmadu waa sumaysan yahay ilaahayna caaduu leeyahay dadka culimmada wax ka sheega inuu ceebeeyo oo fadeexeeyo marka u naseexee hadday naseexada kaa diiddo ama naseexada ayna qaadanaynin intii dembiga aad la wadaagi lahayd ama u qosli lahayd ama aad u marxabayn lahayd ama adigoo dembigii dhacaya meesha aad joogi lahayd oo ka aamusi lahayd goo markaa iska eri haddaan waxba ka qaban karaynin ugu yaraan lafahaaga kala badbaad lafahaaga ka badbaadi markaasi laakiin waxaa ka horraysa inaad u naseexayso wallahu aclam meel walba ay tegayso socodkeeda inuu ogaado xuquuqdiisa miyay ka mid tahay haddii uusan weydinin iyada meeshay u socoto iyadeeda u sheegto laazim miya xuquuqdiisa miya nabigu sal alla alay wasalam markuu sheegayay xuquuqda la ysku leeyahay xuquuqda uu dumarku raggooda ku leeyihiin iyo raggu xuquuqda ay xaasaskooda ku leeyihiin nebigu sal alla alay wasalam waa qeexay haddii ay tahay dana guud haweenkii shareecadu waxay u idantay inay danahooda u bixi karaan kama fi saxiix nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam ilaahay wuxuu idiin idmay inaad danihiinna u bixi kartaan buu idiin idmay marka haddii markaasi aynan xumaan u soconin oo aynan fasaad u soconin oo danihii guriga iyo muxuu ahaayey masaalixdii nolosha ay u baxayso bixitaanka caadiga ah waxba laazim ma aha waxba laazim aha leanna haddii la yidhaahdo bixitaan kasta waa in ay ninka idan weydiisato xaraj baa ku jira ciriiri badan baa gelaysa sidaas daraaddeed waxaa uun muhima danta ay u baxayso waa inay tahay dan laga maarmaana dan guriga u baahan yahay isla markaana safar ayna ahayn magaaladii dhexdeedii ay tahay fasaad iyo xumaan iyo fitna ayna ka dhalanaynin wixii danaha gurigay u baxayso iyo masaalixda iyo wixii ku xidhan iyo wax mushkila ma leh si guudna ma filayo yani wax weeye nin dhaxaya ilaaba kama bixi kartid guriga kama bixi karaysid laanna waxa weeye waa nooc taasi muxuu ahaaye cadibaada waay nooc cadibaado suurtagal maaha noloba wixii yaa ku xidhan khaasatan hadda markii magaalooyin la yimid oo noloshii ay nolol isku xidhan tahay oo waxyaalo fara badan guriga u baahan yahay oo raggii in badan ay mashquulsan yihiin oo yani cidhiidhiga noocaas oo kaleeta ah maslaxo badan kuma jirto haddana gabadha muslimadda iyo hooyada muslimadda waxaa laga rabaa sida ilaahay qur-aanka kariimkaa ku sheegay waqarna fii buyuutikunna markuu la hadlayay nabiga xaasaskiisa sal alla alay wasalam markuu ilaahay ula hadlayo edbinayey oo aadaabta u dejinayey guryihiinna ku sugnaada walaa tabarajna tabaruja aljaariyati اluulaa yani wax weeyaan
in ay markay baxayaan ayna qaab xun u bixin haddaynan jirin wax dan oy u baxaan iyo inay gurigooda joogaan taasi waa mabda asalka ee loo baahan yahay gabadha muslimadda inay ilaaliso oo aynan iska noqonin iska wareegto yani macna la'aan iska baxda iska wareegaysata inaysan noqonin waxay u baxaysa inay tahay muhiimad inta kalena inay gurigeeda joogto wallahu a'lam مكتب يعني كان لازم يسأل عنه بس عاش كل حاجة توم بير كل مفتي هدي كان لازم يسأل مكتب اللي بيسوي من الجو سؤال شكر الحلال معي عمر كاس كطبعا ما كان قاعد جاوب كاس قاعد يطرح ما كان ليه سنة بوصل من بيتي يعني مثل ليه سنة ما كان قاعد جاوب أصلا فلا كاس بعد بس هي ما كان حكي مقنع يعني بس كان أفهم ilmaha uurka ku jira haddii nabar gaadhay uu u soo dhaco oo dhinto nebigu wuxuu ku xukimay sal alla alayh wasalam gurra cabdun aw ama yacni waxa weeye addoon ama addoon ayaa laga bixinayaa culimmadu waxay ku qiimeeyeen khulafada qaar ka midana ay fatwoodeen gurrada ama addoonka 5 neef oo geela waay bimacnaa 5 neef oo geela lagu qiimeeyey ilmaha isagoo uurku ku jira haddii nabar gaadho saa ku soo dhaco 5 neef oo geela laga bixinayo طيب wiil inuu yahay iyo inuu gabadh yahay nebigu ma kala qaadin sal alla alayh wasalam inuu wiil yahay iyo inuu gabadh yahay lama kala qaadin si xukumkaasuu nebigu bixiyey sala allahu calayhi waalihi wasalam sidaas daraaddeed 5 neef ee geela ah ayaa lagu xukumayaa hadduu kama yahay uusan kas ahaynna caaqilada iyo qaraabada bixinaysa magta iyada su-aasha xigta gabadha gaaska la soomila gaasku waa noocyo dadka qaarna iyagoo qabay la soomi karaan haba ku rafaadeene dadka qaarna lama soomi karaan haddaadan la soomi karaynin waad iska afuri xanuunkaasi hadduusan rajo lahayn dhaqaatiirtu yidhaahdaan rajo male inta la ogsoon yahay inaad ka caafimaaddo uma badna hadday ku yidhaahdaan bil kasta iska afur raashiinna bixi hadday waxoogaa rajo kuu muujiyaan inaad caafimaadi kartana iska sug inta aad ka caafimaadayso markaasaad qallayn insha allah taala haddii ilahay ku caafiyo hadday ku dhammaato inaadan caafimaadayninna markaasaad wixii soon kaa tegay oo dhan aad raashin bixinay laakiin marka hore horta waa in la xaqiijiyo xanuunkani ma leeyahay yacni wax weeyaan daawo mise ma laha inta bini aadamku garanayo xanuunnada dhammaantood taasay ku salaysan yihiin hadduusan daawo lahayn lanana soomi kari waayo markaasi raashin baa la bixinaya waana iska afuraysa haddii uu rajo leeyahayna waa la iska sugayaa intuu kala caddaanayo ruuxuna waa iska afuraya xanuunnadoo dhan halkaasaa la marinaya wallahu aclam biyaha inta badan waa la iibsadaa oo dawladdu biyaha lacag bay dad kala baxaan hadday lacag kala baxaanna miisaanka ay ku soo qaadanayaan isagana lacag bay kala baxaan marka biyihiina iyagaa iibsaday diyaaradda u soo qaadaysa miisaankeedana ayagaa gatay wax loo diidaayey meesha kuma jiro
haddii loo diiday inay miisaankooda ku qaataan ayagu ay leeyihiin oo laga mamnuuco sidaana ay ku soo qaataan cid mayna dhicin cidna mayna xadin cidna mayna dulmiyin waxay iibsadeen oo xaq u leeyihiin unbay xaqoodii ku soo dhoofsadeen iyo lacagtay la baxeen iyo miisaankii ay diyaaradda ku lahaayeen intaas hadday tahay wax mushkilaa ma laha wallahu aclam سؤال جواب لكن سكول فيس بقى بحياة مركا سكول فيس كا مرنا بالميل ولا بحياة مرنا هل مرة بحياة مركا هل مرة بحسه فيس كيرون يوم مركا بالبل بحسه كل شيء بيستري مركا بالبل بحسه كل شيء بقصور راس وزيادة بحناس مركا كون كاس ربما ما الربا ما ribo maaha iskuulku lacag ma sarrifayo iskuulku wuxuu ku siinayaa adeeg buu ku siinayaa adeeg waxbarasho adeegkii waxbarasho ayaad ka iibsanaysaa haddii aad lacagta u hormarisana qiimo jaban buu kaa siinaya haddaad lacagta yaryaraysana waxoogaa wuu kugu qaaliyeynaya waxay la mid tahay badeecada suuqa taalla haddii aad tidhaahdo haddaad kaash igu siinaysana waa 1,000 shilin haddaad dayn ku qaadanayso ama dib iga siinaysana waa 1,500 way kala qaalisan tahay mushkilo ma leh beecul ajal baa la dhahaa dibdhigaasi ay badeecada wixii lagu iibsaday ay lacagtu dib dhacayso inay ka qaalisanaato midii markaa lacagteeda la bixinayay mushkilo ma laha sidaas daraadeed iskuulku inuu yiraahdo haddaad noo yaryaraynaysana waa 10,000 haddaad haddana wada siinaysana waa 9,000 wax dhiba ma laha wallahu a'lam